xiisada siyaasadeed ee galmudug iyo doorashooyinkeeda ayaa ah mid in badan soo daaladhicisay waxaana taasi ay sababtay in siyaasadda galmudug dad badan ay rajo ka lahaayeen hadda dhadhan siyaasadeed ay u yeelan weysay horey khilaaf siyaasadeed ayaa usoo kala dhexgalay madaxweynaha talada hayo axmed ducaale geela xaaf iyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir xasan waxaana ay taasi sababtay in xaaf uu isaga hayaamo magaalada dhuusamareeb isagoo oo safarkiisuna kusii maray godinlaabe iyo cadaado ra-iisul wasaare kheyre ayaa halkaas kaga daba tegay xukuumaddan waxay dadaal ku bixisay in xasilooni siyaasadeed iyo xal waara loo helo khilaafka siyaasadeed ee galmudug ka taagan xaaf muqdisho markii uu soo gaaray waxa uu sheegay in doorashada uu gacanta u geliyay wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka Soomaaliya balse 3 bilood kadib ayuu warqad kale uu soo saaray ku sheegay in wasaaraddu ay wax tallaabo ah hore u qaadi weysay sidaas darteedna uu ruqsadii uu ugu dhiibay markii hore dib ugala ceshtay isagoo sheegay inuu ka shaqeyn doono howlaha doorashada ee galmudug laakiin qoraalkiisa kuma uu sheegin xaaf in uu yahay murashax madaxweyne u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee galmudug haddaba galmudug siyaasadeeda halkay u socotaa maxaase laga baran karaa khilaafyadii hore soo maray su'aalahaas iyo kuwa kale oo badan waxaa caawa ila falanqeynaya Professor Ali Saciid Maxamuud Kulane oo ah bara jaamacadeed ahna sidoo kale falanqeeya arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika soo dhaweyn kadib siyaasadda galmudug maxay u muuqataa xilligan bismillaahir rahmaanir rahiim horta salaam ya maaha gurjoog dhageystayaasha daawadayaasha meel kasta ay joogaan marka aan ku hormaro horta marka koobaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa galmudug markaan inay noqoto markii ay biskoolahooda dawoobi lahayd oo duruufihi soo martay siyaasadeed iyo dhaqan-dhaqaale tan iyo markii dhalatay ku habsaday oo lahana qaaday oo dhaqaaq weysay oo lugaha iyo gacmaha iyo madaxa meel kasta ugu marnaa in markaan Ilaahay ka furfuro oo ku hagaajiyo helinka toosan si ay waxana qaado ummadda Soomaaliyeed guud ahaan oo rajaynaynaa iyo doorashooyinka soo socday isbedelada 2020ka iyo maamulayaasha dalka iyo madaxdooda guud ahaan Ilaahay inuu ku hagaajiyo helinka toosan si ummadan u hagaan siyaasadda marka qiimeeyay markii aan ku soo laabto galmudug iyo sida ay ku socoto iyo doorashooyinka la qaban qaabinayo iyo hanka laga leeyahay horta marka koobaad waxaan ku doontaa sida ay la tahay galmudug doorashada ka dhici doonta iyo dadka soo bixi doona waxay noqon doonaan casharo laga bartay galmudug iyo waxay soo martay tan iyo markii la soo asaasay ugu dhawaaqay galmudug iyo isbedelada siyaasadeed ka dhacay iyo dadka hadba duruufii ay soo marayeen madaxdii soo martay galmudug iyo hadba maxay casharada ay barteen ay ku xirnaa doontaa dadka galmudug maanta ay jaanis haystaan marka waxaan isleeyahay dadka galmudug ee maanta wax dooran doona ay dadka ay soo saari doonaan iyo sidii u fikri doonaan oo ka duwnaa doontaa galmudugtii hore oo qadiimka ahayd iyo sidii u fikri jirtay iyo madaxdii hore ay sidii ahaayeen si guud marka aan muujiyo maxay ahayd fikir iyo aragti ku dhisan tafaa'ul iyo samasaad iyo khayr waxay la tahay maamulka galmudug la filay inuu ka dhismo iyo doorashooyinka inay ka dhacaan la sugayo waxa hadda gacanta ku haya wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya teeda badan soo wareejiyo boqolkiiba 70 xaafati uu wareejiyay markii uu Dhuusamareeb ka tagay oo godin laba iyo dhinacaas cadada u sii socday markuu xamar ku soo laabtay wato bayaanka soo saaray iyo kulligeegaas inkastoo warar dambe uu ka soo daba tuuray ahaa inuu wasaaradda wax dhaqaajilada taa mar kale inuu faraha la galo oo ku lug yeeshay asaga iyo maamulkiisa iyo madaxdii la shaqeynaysa laakiin waxa soo markii la isku soo xooriyo macnaheedu ma ahan galmudug iyo istiraatiijiyadii loo sameeyay in doorashada ay ku dhacday maamulka soo socday madaxda ma doonto istiraatiijiyada u sameysay dawladda wasaaradda arrimaha gudaha beesha caalamka dunida oo dhan ishay ku hayaan qorshe la isku ogyahay istiraatiijiyad loo dejiyay ee maamul iyo siyaasad doorasho ayaana jirta oo aan isleeyahay madaxweyne xaafna hadda kam war la ogyahay shaakirna sidoo kale uu ogyahay hadisna nuqul kaysan xataa xan ay ku helayaan isna kaysan nuqul saxaad isna soo gaaray u dhun dalalaan arrintii wali ay gacanta kula jiraan marka waxaan isleeyahay sida ay filayaan dadka reer galmudug iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan doorashadan way ka duwanaa doontaa wayna ka bedelaa doontaa sida la filayo waayahay
galmudug maamulo lala dhisaa jiro oo dabcan sida hirshabeelle iyo jubbaland iyo koonfur galbeed dhammaantood maamuladaas way saldhigteen oo khilaaf xagga maamulka ma jiraan inay bal la dagaalaan dowladda federaalka marka laga soo tago maahane galmudug dowladda xiriir wanaagsanna kale ma dhexeeyo dhexdeedana madaxweynihii dhinac u taagan yahay madax xukuumaddii madaxweyne ku-xigeenkii baarlamaankii maxay u saldhigan la'dahay ilaa hadda markaad si guud u fiiriso maamul goboleedyadii iyo madaxdii gobolada wadanka federaalka markii la qaato ka aas-aasmay ilaa hadda maamul goboleed la dhihi karo si sax u hana qaaday ama ugu yaraan wuxuu ku dhawaaday hanaqaadkiisii 80 ama 70 waxaa ka jira hal maamul oo Puntland oo ka horeeyay marka horeba dowladda federaalka iyo nidaamkan federaalka markii la qaadanayo laakiin markaad fiirisid Hirshabeelle markaad fiirisid maxay ahaday Baydhabo markaad fiirisid Kismaayo Xudmudug Jubbaland galmudug oo sida hadda dadku aaminsan yihiin ahayd maamulkii inta badan khilaaf ku ragaadiyo dhaqaaq waayay oo halka laaba qaadin dhammaantood marka isku dartid ma jiro maamul hana qaaday oo taaba galay oo siyaasadiisa xor u noqday oo wax qabsaday oo dadkii deegaanka madaxda u ahaa mas'uuliyadii u qaaday gutay ama isku day xataa inuu guto madaxdii way magacaaban yihiin magaal madaxdii waa la joogaa laakiin maamul kasta markaa fiirisay siyaasadiisu ma dhameystirna konstitutionkiisa iyo dastuurkiisuna ma qorna howl maalmeedkiisa xataa ma muuqdo oo ma tiftiraa wax qabad ay qabteen oo bulshada u qabteen ama deegaanka ama xataa magaal madaxyada ay joogeen oo la taaban karo markii laga reebo in dadka qaar ay caburin ka tabanayaan in laga tabanaynasan adeeg galmudug laakiin waxay sii gaartaa Soomaaliya waxa soo dhan marka galmudug iyadoo waxay dheer tahay in khilaafka bay la hana qaaday oo markii la aasaasay ba iyadoo 7 jirsan ama 40 kiiba aan ka bixin khilaafkii uu ku bilowday oo ay dhaqaaq weysay oo ay isqabsadeen oo dhowr dawladood dana kala noqdeen dhowr maamul madaxtooyaal kala degeen baarlamaankii madaxweynihii isqabsadeen khilaafku ka xoog badnaa khilaafku meel kasta oo jira laakiin khilaaf galmudug waxa khilaaf laban laaban ama saddex laaban waxaana keenaysa dadkood mar aan si fiican uga faaloolin arrinta galmudug factors badan jira oo uga duwan tahay steedada kale oo ahay strategical meesha ku taal geographical meesha ku taal dalka ama centerka oo dhinac kasta ay ka saameynayaan maxay ahayd duruufaha dalka ka jira gudaha iyo iyagoo de environment-ga ay ku taal galmudug ka hana qaadayso beelaad u tira badan ilaa dhowr iyo 10 beelood la sheegayo inay qayb ka yihiin oo ayagana dhexdooda khilaafaad badan oo yiilay dagaalo iyo burbur soo jira wax badan iyo waxa soo dhan saameynaya ka duwanayeen marka Baydhabo kala Kismaayo kala oo laga yaabo hal beel masla laba beel ama saddex inay wax wada dhistaan si guud marka waxaan isleeyahay maamuladii dhan waxana qaaday oo la dhigi karo waxana qaadeen markii la fiilinayo halbeega oo isteediyada adduunka iyo federaalka qaabku waxana qaado ama u fikiraan muusan jirin xataa galmudug maxay ku darxataa Puntland oo la sheegay inay tahay federaalka oo fikradaas wax badan ay ku lahaayeen marka ay ka xataa in Soomaaliya federaal ay qaado looga qiyaas qaadanayeen ay dhaqaaq karto Soomaalida haday federaal noqoto sida Puntland oo kale ama Somaliland oo kale ama markaas la yiri tijaabo fiican la sameeyay marka haday ay kala qiyaas qaato wax badan la qaban karo laakiin waxa isleeyahay kulligood wax badan ay u baahnayeen weli lagu sii baahnaa doonaan in la sii ilaaliyo oo lagu sii tababaro weli waa safarad state maamul goboleed hana qaadi sidii la rabay ama u dhowna ma jiro waayahay xaf madaxweynaha galmudug waqtigiisu waa u dhamaaday doorasho raba inuu qaban qaabiyo waxaa la soo xaliyay cadaado oo weli muran badan ayaguna tankooda ka taagan tahay ahlu sunna iyo dabcan dadka deegaanka halkaas degan in caasimad looga dhigo magaalada lagu qanciyay gaalkacyo wax garadkooda way hadleen waxay sheegeen in galmudug saamigii marka hore ay lahayn ee madaxweynihii maashadu ka baxana ugu yaraan in ay magaalo madaxdiisan helaynin oo xarunta baarlamaanka san helaynin oo wax dhigmo ugu yaraan aysan helaynin ay ku qasbay yihiin inay saami helaan ayagoo nafsakoo dood badan ka taagan maxaa marka xal u ah soo khilaafkan haddana soo cusboonaaday laf dhabar kale oo dhabar jabku ma keenayso galmudug khilaafkeeda inay hadba khilaafaad cusub oo yimaado la yaab ma lawaana la filay weligeed tan waa la fili doonaa mustaqbalka dhow marka hore historiga taariikhda galmudug ee ku asaasatay markii uu fiirsay waxay ka sameysneed ex galmudug oo galkacay joogay iyo xibin xeeb oo cadaad deganeed iyo halsan oo jamaa wadaadidii oo dhuusan reeb deganaayeen saddexaas maamul oo marka hore u jiray
oo mid kasta oo madax banaanay oo xoogganay oo siyaasadiisa uu watay ay marka hore ka dhismay maxay ahayd maamulka galmudug madaxweyne xasan sheekh aan xasuustaa khilaafka soo sidan ka xoog badan oo la haysto saddexdaas magaalo is haystaan iyo dadka jooga marka ugu dambeysay oo ku xaliyay Dhuusamareeb iyadoo la wada joogo oo yiraahday reer gaalkacyo idinka waxa qaadanaysa madaxweynaha Dhuusamareeb waxa qaadanaysa magaalo madaxda galmudug cadaadana waxa noqonaysa magaalo madaxda ku meel gaarka fayna ugu dambeyn waxa noqon doontaa baarlamaanka meesha deegaanada way ku qanceen saddexdii maamul ee meeshaas ka jiray dadkii ka soo jeeday intaba hadda waxa u muuqataa in step ku qaaday madaxweyne xasan sheekh iyo wax uu ka qaadi doono si loo qanciyo ugu yaraan iyadoo wax lagu wada qanacsan yahay ee meesha uga soo baxaan dawladdan hadda jirta iyo wasiirkooda arrimaha gudaha iyo madaxweyne farmaajo Khayre ay u taala qaabka ay statekaas inuu ku dhismo iyo nidaamka ku qanci doonaan beelaha iyo maamulayaasha meesha ka soo horjeeda laakiin waxaan isleeyahay wax hore loo soo maray waaye wixii hore loo arki jiray wixii leeyahay wixii lagu xalli jiray laga ambaqaadaa waxa dara wax cusub oo la arki jiray ugu dambeyn waxa isleeyahay halkaas ma foga oo khilaafkaas taabatay ah in gaalkacyo ay cabanayso ay leedahay hadii madaxweynihiina aan weynay magaalo madaxdiina aanan helin maxaana ka maqaamno ah waxa isleeyahay markaan miiska wasaarada waxa lagu qanci lahaa kana gaalkacyo sidaan ku aqaan waa dad marka waxay ku xiran tahay habka xukuumadda loo wajaho xukuumadda istiraatiijiyadda falsafada isticmaashay ku xiran tahay hab maamul oo ay ka leeyimaadeen waayahay murashaxiin badan taagan dadka xukuumadda ka soo horjeedo waxa ugu cadcad Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa halka xukuumadda lagu tirinayo qorqor marka fiirisid dadka murashaxiinta ah murashaxa madaxweyne ee galmudug shuruudo nooca karabe leeyahay waa inuu baahidaas qabtaa shakhsiyadda oo ka hadlaynin nooca qof ee madaxweyne galmudug u baahan tahay maanta waa noocay markii aan fiiriyo aniga arrimaha galmudug aad ayaan u akhriyaa oo u daraaseeyaa markastana waan ka faalloodaa arrimaha galmudug ilaa hadda markii tobnaad way dhanta u malaynaa arrimahaas galmudug aan ka faalloonaya tan iyo markii galmudug ay dhisantay oo lagu dhawaaqay madaxweynaheeda aan waxaa is leeyahay galmudug maanta waxay u baahan tahay si guud hal qof uma baahna oo madaxweyne u noqdo oo soo baxa oo yiraahdaan idin madaxweyne ah galmudug maanta waxay u baahan tahay reer galmudug dhan inay madaxweyne noqdaan oo ay hal madaxweyne isku raacsan yihiin oo ay ku qanacsan yihiin ay doortaan xataa musharaxiinta dadka murashaxiinta ah labadooda ka qorqor iyo odawaa kale ma aha laakiin murashaxiin kale badan jira inay wada fariistaan oo ay isqanciyaan oo ay isku qanciyaan qofkii noo fiican oo maanta galmudug xaaladeeda u jeeda meesha ay marayso dadkii deegaanka duruufta haysta waa loo jeedaa madaxdii hore u soo martay galmudug ee meesha geeyeen waa loo jeedaa dawladda ku meel gaarka iyo cadaadiskay ku haysay iyo duruufihii la soo maray ilaa hadda laga soo kabalaya reer galmudugna ha dhamaanteen mudug galgududan ka soo jeednaa madaxaan u wada tartamayna maanta yaa noogu mudan inay dhahaan oo aqligaas uu shaqeeyo oo tanaasul inuu dhaco tanaasul sax ah uu dhaco oo aan la dhihin karna waxa wata dawladda ku meel gaarka oo qorqore la yiraahdo ninkan waa mucaarad oo odawaa la yiraahdo kana diaspora oo meesha ka socda ergaas inay aragtidaas meesha ka baxaan oo ugu yaraan uu shaqeeyo dameerkeed nimada gaar ahaan maxay ahayd aragtidii fiicneed iyo kartidii lagu yaqaan reer galmudug inay meesha ka soo baxdo waxaan is leeyahay su'aasha marka uu soo laabto madaxweynaha ugu habboon maanta aan isdhihi lahay galmudug inuu waqtigan iyo xilligan la joogo uu ku habboonaa lahaa waxay la tahay madaxweyne ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan ugu yaraan waa in la sameeyo maxay ahayd xog ururin sax ah oo beelaha galmudug dega oo 12 beelooda ugu yaraan laga sameeyo dad khubaraa dad aqoon-yahanaa way leeyihiin reer galmudug doorashada inta saameyn koor in la sameeyo arrintaas dadkaas meesha ay u badan yihiin kolay qof u badnaa doonaan oo ku qanci doonaan qofkaas waa qof galmudug dhan ay rabto in madaxweyne noocaas uu dhaco qaabka wuxuu dhici jireen iyo qofkii la keeni jiray ee daaqada laga soo gelay iyo lacag ku soo baxay iyo corruption oo ku yimid inay saarunto noqon ee aragtida dadka reer galmudug iyo dareenkooda lagu dhiso madaxweynaha soo socdaan waan qabaa laba waxa kale oo qabaa qofka galmudug maanta maamulay doono oo madaxweynaha u noqon doono inuu noqdo qof ilaahay ka cabsado oo san noqon xilaa in muuqda ay madaxweynaha rabaa inaan ku takrifal awoodeysada oo san arrintaas aysan u muuqato dadkii deegaanka ka soo jeeday duruufaha haysta maanta oo ay ku nool yihiin inay asaagood ka hareen maamul goboleedii meel kasta macnaha ka dhisnaadaan qof dareenkaas oo ku jiro oo wanaagsan inuu noqdana
waa rajay lahaa ugu dambeyn waxaan dhihi lahaa reer galmudug inay khayraystaan qofka ilaahay u soo saaro ku guulaysta soo rabaa ku soo baxo oo ay la shaqeeyaan oo ay yidhaahdaan waa midkaan rabnay oo ilaahay noo soo saaray waana sugaynay waxa aad khayraysatay ilaahay khayrka ugu daraya laakiin marka filashada in la wanaajiyo marka filashada in dadku wanaajiyaan oo ay qofka soo baxo nasiib ugu dhaco qoray kulley waa qofku ilaahay u qoray inay si wanaagsan ula shaqeeyaan si niyad leh ay ku soo dhaweeyaan oo mucaaradkii iskhilaafkii isjijiidkii siyaasadeed iyo oo meesha ka baxo ugu yaraan oo galmudug ahna qaato Professor Ali Saciid Maxamuud Kulane oo falanqeeya arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika ayuu ahaa